wanaagsan ha waaqa maxaa barid markhaatiga noo weeyaan maxamed bariido waa dhici kartaa waa haya telefonkiisa maxamed bariido ayaa la raadsaday waxaa loo tegay iyaga oo 40 nin ka badan basiiri foodi man haddaan anigu been sheegayo maxamed bariido aad dhici kartaa waa maxamed bariido la raadsaday isagoo 40 nin wata waa kenya cida laandeerka iyo cida qabiilka waa leeyahay laakiin fulayu markuu wax qaadayo yani qabiil waa ka xoog badan markuu wax qaadayo way waa anigu istaafan watay maalintii ugu dambeysay soo baxay ahayd muqdisho ayaa waxaa laga diyaariyey oo beesha murugsade oo gabadha la duway ayaan ducaysan la yiraahdo iyo beesha murugsade allah sharfo oo dad sharaf leh la ii diyaariyey maalintii mandayda soo dhaweyn aad u qiimo badan maasha Allah markii habeennimadii ay ahayd ayaa waxaan tagay waxaan iska fasaxay staafkeygii 4 wiil bay la socday wiilana tuunahay iyo 3 wiil oo kale waa waxaan tagay xarun wiil la bahto Nuur Axmed Ingiriiska uu furanay oo shisha ahay waa waxaa yimi ninka la yiraahdo Samatariyada oo fanaan sheegta oo fanaan ah iyo isaga iyo 13 nin oo kale oo qaarkood bistoolada wata waa Samatariyada laftiisa nooliga laga soo bixiyay oo Minneapolis ayuu ka imaaday waa waxaana isku leeyihiin islaamaha raashinka waxa laga xidha waxa dhacday arrintii markii halka marayso waa soo baxnay Samatariyada baa soo raqaaday isagoo salaamo tabaan tanina garanay salaam paper spray ku buufi ha paper spray waa ku soo waa tan hortiina taala way arkayaan dadku yes kan kabacdina kana feed uu dhuftay feerku halkaas uu kaga dhaco aragta sama ha bushinta isagii waxa garaacay wiilan arday waxa saacada aan ku soo diray isaga laga furtay waa 13 diga kala soo booday bistoolada la soo baxay laba bistoolad wiilashii wata kaaba iyagoo ciidan ahaa meeshana ciidan kale waxa joogay Kenyaatiya wiilkeeka kama dhicin waad aragtay arigoo saas lahaya waxaan iska heliyay yani in paper spray ugu buufsan waa paperki uu dhacay spray uu dhacay inuu iga dhacay kabacdina feerkaas ayuu wurftay ma jiro haba yaraatee wax iniga oo iga dhacay sida taayga waa kuwa wada isdari waa feerkaas wax tooraya iyo wax xabad oo lagu dhuftayna ma jirto Soomaa حكايابي waxaan marka waxaan sameyn karay legal action laakiin legal action ki waxa iga cusla state department ki waxa uu u gudbiyay waxa iga cusla yani dad badan oo mas'uuliyiin oo beesha murugsada ayaa isku diyaariya hawshaas waana aragtay waana kula wadaagay Soomaa si wanaagsan islaamnimadu waa soo baxay waxa habada oo haba yaraatay jira ma jirto waa u jeedaa waa taagaya feerka waa faruuta waa halka mana leeytolin feerka marka ninka kugu dhuftay waa ninkan Soomaa Samatar mise waa ninka kale ina aragsan waa Ahmed aragsan marka ninka lacagta la soo siiyay waa ina aragsan Samatar iyo ina aragsan Minneapolis marka ka soo baxday baa laga soo daba diray Soomaa waliba Samatar wuxuu joogay 4 days afar maalmood ka soo wareeray bariido isagoo 40 yaa soo wareeray wuxuu weeraray bariido maxamed bariido okay maxaa bariido weeraray isagoo wata 40 okay maxamed bariido markuu weerarayay anigu magaaladan geeska jiro yani waxa weeyaan qofkii lagu arko ayaa la weerarayo la raadsanay waxaan oo dhan marka waxa ka dambeeyo qolyihii aad ka shiftay ee ciyaalka cuntadooda food childrenka ka ganacsanay yes iyaga ka dambeeya cadaynta aan ku sheegay hadaba waxay tahay waxa jira nin la yiraahdo gure dhareer oo qabri bayax uu kaga xidhnaa oo walla oo magaalada yada jooga kaas waa nin caan oo la yaqaan isagii Samatar kala xaga yani oo ilaahay waa ugu yahay yani ninkaasi waxa uu soo dirayaa video baan ku soo dirayaa videos ummadda Soomaaliyeed la wadaag yani anigu haddaan beesha nacdashi Allah ay u dhaco isagoo dhahaya anigu been sheegay ninkaas la yiraahdo gure dhareer waxa ku soo dirayaa ma sha Allah wadanku waa barwaaqaysan yahay waa abda xasho la socda oday abda xasho ahaa la socda waxa ku soo dirayaa video ninkaas oo dhahaya ma sha Allah maanta waxaan la kulmay gabar lesbian marka Soomaaliyeed abaday moodayaan yani inaan been ka sheegay videoga fatusa waa ninkaas